mujaahid cali maxamed yuusuf cali guray oo ka tirsan xisbiga talada dalka hayee kulmiye ayaa si cad u sheegay in heshiiska saldhigga milatari ee dalka imaaraadka laga siinayo magaalo xeebeedka berbera ay bixisay dowladda soomaaliya, waxaana uu caddeeyey in mas-uuliyiinta xukuumaddu xubno uun ka ahayeen heshiiskaasi. mujaahid cali maxamed yuusuf cali guray oo khadka taleefanka ugu waramayay shabakada caalamiga ee Harwanaag News ayaa tilmaamay in wasiirka madaxtooyada Somaliland maxamuud xaashi cabdi hadalkiisa laga dhadhansaday in madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynihii hore Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud go'aamo qarsoodi ay isku ogaayeen. wallahi aniga arrinka iigu muhiimsanaa saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa taagnaa anigu doorasho waa xal, doorasho la-aanina waa xal la-aan. marka waxa ugu weynee dee rajo soo noolayn karaa waxa weeye iyadoo doorasho sidaa lagu heshiiyey si cadaalada ay u dhacdo. inta aan doorashada la gaarin arrimaha taagan waxa ugu muhiimsan arrimahan berbera oo markii horena dawladdii hore iyadoon lainoo sheegin dawladdii Soomaaliya ee hore ay ku lug lahayd oo ay ogolaansho bixisay sida ka muuqatay hadalka qolada xukuumadda. dekeda waxaa yidhi anigaa ogolaaday oo saxeexay ra-iisul wasaarihii dawladdii hore ee Soomaaliya. heshiiskan saldhigana waxaan ka fahmay hadalkii wasiirka madaxtooyada in madaxweynaheena iyo madaxweynaha Soomaaliya ay ka wada hadleen oo ay ka heshiiyeen. baquhna uu yahay in madaxweynahan cusub ee Soomaaliya uu ka noqdo iyo baarlamaankooda. dee arrinkaa inagu xoogaal markii hore umaynaan ahayn, imikadan lafteedana si cad dee weli looma sheegin. marka waxaan qabaa arrinkaa in waxoogaa uu yahay arrin madmadowna ku jiro, siduu u dhici doonana runtii aanan anigu fahamsanayn. dhinaca kale mujaahid cali maxamed yuusuf cali guray ayaa xukuumadda u soo jeediyey in shacabka runta loo sheego. waa siduu isagoo hadalka u dhigay mar haddii dowladda Soomaaliya wuxuu yeedhinaysaa ayaa uu yidhi Somaliland goobjoogna ay ka tahay heshiisyada ay la gelayso shirkadaha iyo saldhigga milatari ee dalka imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera. horta shacbiga waxaa marka hore fiicanba in runta loo sheego. Somaliland lama aqoonsana xagga xeerka caalamiga ana inta aan la aqoonsan waxay tahay Soomaaliya, waana halka keenaysa. marka labunba mid inoo tahay wixii ku xidhmaya ee heshiisya ee ku xidhmaya Soomaaliya madaxdeeda ama xukuumadeeda ama dawladeeda oo aynu gebi ahaanba inagu iska dayno ilaa intaynu ictiraafayno, iyo inay noqoto bay haddii la waayo xidigaha lagu gudaayay dadka aan laga qarinin in ay heshiis caalami ah oo dawladaha badankoodu ay ku qasban yihiin in ay si xagga sharciga caalamiga ah ay Soomaaliya ogolaansho ama waxba kama qabno ka helaan. marka inaga nagu xiran tahay cid kale kuma xidhna haddaynu iskaba dayno wixii iyaga uga baahan. sidoo kale waxa uu ka hadlay mujaahid cali maxamed yuusuf cali guray in heshiiska saldhigga milatari iyo shirkadda DPO ee iyadana lagu wareejiyey dekeda Berbera inay maragmadoon tahay. waa sida uu tilmaamay inay Soomaaliya bixisay ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. mid waxaa caddeeyey ra-iisul wasaaraha ee Soomaaliya oo waan qabaa in ay run tahay oo intii ay inaga inoo iman ay kasoo dhamaysteen Soomaaliya. waan gartay dibna inaga inoo yimaadana heshiisna galeen Soomaaliyana markaa waxay ka heleen sida ra-iisul wasaaruhu sheegayo laba maanic waxba kama qabno inay la gashaan. wadahadaladii hore ee heshiiska Soomaaliya iyo Somaliland waxaa ku jirtay in mashaariicda aynu u madax banaanaano xagga horumarinta ah oo waxay noqonaysaa hadday diidaan inay jebiyeen heshiis. cali guray ayaa dhinaca kale sheegay inuu garan waayey faa'iidada uu leeyahay saldhigga milatari ee Berbera laga siinayo imaaraadka, xukuumadduna aanay weli shacabka iyo baarlamaankaba waa sida uu tilmaamay aanay u soo bandhigin heshiis dhammaystiran oo bulshada qancin kara. waxaana uu ku tilmaamay cali guray heshiiskaasi mid madow. wariyow horta adigu dee wax allaaliyo wax aan ka fahmay waayo waxaanan haynin macluumaadka waxa aynu ka faa'iideyna ma hayo. heshiis dhamaystiran oo labada dhinac ay wada galeen weli ma jira baa la leeyahay. laakiin waxa weeye inuu inaga dan inoo yahay amniga inaga nabadgelyadana iyo nabadgelyada mandaqadana
aan wax dhibaato ah ku lahayn at the same time-na aan lagaga duuli karin dalal kale oo aynaan ka mid noqon khilaafaadka dagaalada ka socda mantaqada. marka intaa midna la inooma caddayn, weli waa sugaynaa. laakiin anigu principle mabda ahaan inuu berbera saldhig shisheeye ka samaysmi karo, oo haddii ay dani inoogu jirto oo maxaynu helaynaadaasi ay tahay wax ina taraya, mabda ahaan ma diidani. waayo ruushkaa saldhig ku lahaa, kumaynaan khasaarin. soomaaliya oo dhan baa ka faa'iiday. maraykankaa saldhig ku lahaa, waxay ku qaadan jireen xoolo badan. soomaaliya oo dhan cidna lagagama duulin, logistics iyo adeegun bay ahayd. marka waxay ku xidhan tahay saldhigan oo si fiican ay u sharaxdo, markaynu ogaano inuu waxtari noo leeyahay, dhibaatana aanu ku lahayn mandaqada aynu ku noolnahay. marka labada si aanay dhibaato ku lahayn, waxba markaa dee khatara ma jirto. laakiin imika waxbaba ka garan mayno inuu dani noo yahay iyo inaanu dani noo ahayn, iyo sida loo wado iyo waxa uu noqon doono iyo heshiis jira. marka waa mugdi. saldhigaasi arrinka saldhigu waa mugdi, dee mugdina waxba kama sheegi karo. gabagabadii waxa uu ka hadlay xisbiyada mucaaradka somalilan uu ku eedeeyey madaxweyne Silaanyo inay jilicsan tahay hogaamintiisu, maadaama sida uu sheegay heshiiska saldhiga military uu u daba fadhiistay xukuumadda xasan sheekh maxamuud hogaaminayo. waxaana uu yidhi, wanigow dee madaxweynaha soomaaliya mashruucan ku qiimaynayna waynu naqaanaaye, laakiin waxbaa qaldan. oo in arrintaa soomaali maaha, dunidu way saldhigyeesi yeelataa, mid baa bixiya mid baa yeesha. laakiin innaga waxa weeye innaga iyo cidda maamulaysa ayaa waxay naga qaldan yihiin. waa shaksi saari maayo anigu madaxweynaha, waxaan gaar saarayo. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan, shabakada caalamiga ee Harwanaag, magaalada Hargeysa.